بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرين كوبان وأن ربونا لو داغو ولا الله كمسلمين تا الصوماليات كارهان dadka aimada masaajidada ah imaamyada masaajidada iyo maamulada masaajidada ayaa fariintani gaar u tahay. waxaan rabaa laba qodob inaadan xasuusiyo walaalayaal. qodobka koowaad waxa weeye si hore aynu soo tilmaanay tobanka dambe waxyaabaha sunnaha ah ama acmaasha aadka muhiimka ah waxa kamid ah i'tikaafkana masaajid baa lagu i'tikaafaa. saas awgeed markii dadku inta badan ay israahaan i'tikaafa waxay kala kulmaan caqabaad maamulada masaajidada. walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa walaalihiina idin iman doona ee masaajidka idinku martiyi doona inay xaq idinku leeyihiin, in soo dhaweyntooda iyo u furfurnaantooda aad ajar weyn ka helaysaa. waxaa markaa mudan dadkaas idin imanaya ee masaajidka soo martinaya ee ilaahay gurigiisii imanaya. masaajidku waa meel la wada leeyahay laakiin maamulka cid baa haysa. saas daraaddeed waxaa habboon dadkaas in la soo dhaweeyo oo loo dulqaato. haddii dadka qaar waxa laga yaaba in khaladaad ka dhacaan ama waxyaaba dee laga yaaba masaajidka ina dhibayaan in mararka qaar ay ka dhacaan. taas waa qodobka koobaadoo dadkaas ilaahay gurigiisa yimi ee ilaahay raba inay tobanka habeen u cibaadaystaan walaalayaal aynu soo dhaweyno, aynu ku faraxno. waxay qeyb ka noqonaysaa dadkii oo khayrka lala jeclaaday. qodobka labaad ama fariinta labaadaan raba inaan masaajidada imaamyada haya iyo maamulada masaajidda aan u diro waxa weeye tahajudka marka la tukanayo habeenkii saqbarhka masaajidada badankooda waxay isticmaalaan samaacad baa la isticmaalaa. waxaynu ognahay walaalayaal salaadan la tukanaya waa salaad sunna ah. sideedana camalku mar kasta asagoo sidiisa ugu habboon si guud ugu habboon ilaalinta iyo dhowrista iyo qarinta, haddana markay sunno tahayna waa kasii mudan yahay. waxa kasii daran waxaa laga yaabaa in dad badan oo xaafadda masaajidka ku xiga ah inay qaar xanuunsanayaan, inay kuwa kuu yimi ee kula tukanaya qaar ka mid hooyooyin badan oo ka mid waxa laga yaabaa inay carruurtii soo seexiyeen. dabeetana markaad samaacadaha shido dhawaaqa samaacadaha aad carruurtii ku toosiso dabeetana waxaa laga yaabaa hooyooyin badan oo soo cibaado doontay mikrofoonka la shiday daraaddeed in cibaadada aad kaga joojiso. waxaa laga yaabaa dad badan oo muslimiin ahaa oo xanuunsanayay oo masaajidka u dhowaa inuu samaacadaas ay dhibto baa laga yaabaa. waxaa laga yaabaa qaar badan oo hurdaba la'aa oo laga yaabaa markaa inay heleen oo xanuun hayay inay ku sasaan baa laga yaabaa. calaa kullin walaalayaal waxaa habboon samaacadaha in laba midun la sameeyo, in la iskaba dhaafo oo la iskaba daayo. inta yar masaajidka ku tukanayso kale waa in koobane qur-aanka waxa weeye si caadi la iskaga akhriyo, mikrofoon la lagu akhriyo. haddii aan taa la awoodi karayna samaacadaha dusha masaajidka in laga xidho ayaa aada iyo aada u habboon. arrinkaas culimmadana waa tilmaameen. bulsha ahaana waxa laga yaabaa in bulshada waxa weeye sas badan habeenkii geliyo. marka 10 masaajid oo isku xaafadu ay hal mar siraadaan codkana meesha la geeyo habeenkii laga yaabo dhaqaaqii iyo gawaadhidii iyo waxyaabihii oo dhan magaaladu ay kala degan tahay inuu dhibaato bulshada u keena laga yaabaa. khayr badan baan walaalayaal idin rajaynaynaa. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala fariintaydaas inay gaari doonto walaalahayga masaajidada haya kuna waxa weeye arrinkaana ku baraarugi doonaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.